inta badan wadooyinka magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho ee looga bartay saxmadda dadweynaha iyo gaadiidka ayaa maanta la arkayaa iyadoo aanu ka jirin dhaqdhaqaaq xoog leh oo ku aadan sidii hore looga bartay wadooyinkaasi. Ujeedada ugu weyn ee tallaabada hakinta isticmaalka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa loo arkaa inay tahay sabab la xiriira feejignaanta ku aadan dhibaatada caalamka gaadhay ee cudurka coronavirus, kaasi oo kiisaskii ugu horreeyay laga helay magaalada Muqdisho isla markaana shaqsigii ugu horreeyay ee kiiskaasi uu ku dhacay ugu geeriyooday magaalada Muqdisho sida ay dhawaan sheegtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. dadka Muqdisho ayaa si lama filaana maanta waxa ay la kulmeen dareenkooda ku aadan xirnaanshaha wadooyinka. kala shaki ayaa ka jira caasimadda sabab la xiriira cudurka coronavirus kadib markii dawladdu ay sheegtay in kiisaskii ugu horreeyay ee cudurka coronavirus ku dhacay iyagu ay ugu geeriyoodeen gudaha magaalada Muqdisho. haddaba dareenka shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo aan la sheekaystay ayaa ii waramay, waxaana ay iiga sheekeeyeen dareenkooda ku aadan bal siday u arkaan in saaka ay ku waabariistaan xirnaanshaha wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho iyo kala shakiga ku aadan in shacabka ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka isla dhashay iyo kuwa asxaabta ah ay aad u kala shakiyeen sabab la xiriira cudurka coronavirus. ma santahay anu dabcan cabar waa soo lugayay marka cudurkan sida nolosha cudur faafa oo dadka waxyaalo badan geysan kara adduunkana saameeyay marka amarada dawladda soo saardo iyo xiritaanka wadooyinka iyo wixii dawladda markaas ay ku xakameynayso dabcan waa soo dhaweynaa waa la qaadan amar la qaadanayo waa fulay dabcan. saaka xaafadii baad ka soo tagtay, waxaa jira kala shaki dadka Muqdisho ee ah in qofka kale uusan salaamin, qofka saaxiibkiisa xitaa uusan gacanta u soo taagi karin. shakigaas ka waran. dabcan aad ku saameeyay waa in dadka kala shakiyaan qof afku xiran arkaysid laga yaabo saaxiibka ka hor yimaad in salaamsan in xusr ku taag laga yaabo marka waa dabcan aad u saameeyay wax la dareemayo waa saa'id. magacaygu waa Cabdinaasir Axmed Cali, waxaan u arkaa cudurka coronavirus gaaja daran. qofka hadii la yiraahdo shaqaha aadin waa in dawladda ay siisaa wax raashin ay guriga ugu geysaa oo guriga wax dheef loogu geeyaa, laakiin hadii la yiraahdo ma soconaysaan guriyana raashin la kuma keenayo arrinkaas arrin shaqeynaya ma aha, mana u soconayo dawladdu waa inay dadka guriyada raashin ugu geysaa. cudurkaas ee ninka wato gaalaha wataan gaaladaas oo dad muslim aanay yaa noola dhibin ilaaha laga cabsado hadii oo micna raashinkan meel la saar karo amal fasax xoogsatanay oo laadaan leenahay biilaan algaraba wax walba algaraba inta wax ka keenayna hada guriyaad lagu xirtaan aad weyn wadooyinka magaalada Muqdisho maanta waxa la dareemayaa dhibaato aad weyn. dawladda Soomaaliya oo ah uula amarida dalka waxaan ahnay mootaalay, waxaan ahnay shacab weyn ma noo qalanto wadada in la xiro leeyahay cudur islaam aan ahnay ilaahay ayaa keenay qof wax nasiiso amba ceer nasiiso amba xoolo nasiiso ma jirto. dawladdu iyada ismaamusho canshuuraan dhiibnaa waa dhibanahay midda hadda jirto inay sii weynaato ma ahan inay yaraato ma la yaabo. maanta bilaab aan aragnay waan ku waana qaadanay wax aan u dul qaadan karno ma waxa la yiraahdo wadooyinka laga xiro albaabada lagu xiro dawladdeena ogna tabar badan ma laha dhaqaale dadka guriga kuma sii karto. qof walba subaxii soo baxa risaqo soo raadiya habeenkii wixii ilaahay si uu la xarooda oo dib u laabta ilmihiisa iyo wax ku noolaa ku aada. haddaad marka irid ka xirto dhaqaalaha oo isgoosida aad xirto qofka inuu san shaqaysan aad ku kalifto dukaankiisa aad xirto meel walba aad xirto maxaa ugu tala gashay dadkii oo haysa ilaa nolol la rabaa waxa leedahay waxaan ka badbaadinaa cudur haddana waa sii dilaysaa waxaad u dilaysaa baahi. marka baahidii wixii looga badbaadi lahaa budgetkii dawladda ma la imaado dadka ay sii lahayd. annaga waxaan oranahay sheekadan inay iska tahay sheeko oo maalayacni oo qandaraaso meel u socota aanan aqoonin. waxa meeshan hadda dadka isugu yimid ay yihiin waa dad nolosha wada raadiya 24 saac waxay ka walwalsan yihiin. hadda saacadan walwalka u bilowday caawa riyay ku jiraan waxay leeyihiin subaxii maxaa cuni doontaan. arrintan ayaa ah mid ku cusub magaalada Muqdisho iyadoo ay ku soo beegmayso amar dhawaan ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ee lagu joojinayay guud ahaanba barkulanka bulshada, xafladaha aroosyada iyo shirarka si loo xakameeyo halista iyo faafidda cudurka coronavirus. Umar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.